waa xidig faneedkii fanka Soomaaliyeed. Waa ninka loo maleeyo dhammaan heesihiisu inay isaga ka hadlayaan. Si gaar ah waxa loogu xusuustaa heesaha forjada ah. Waa kuma fanaankaasi. Soo dhaw daawade, waxaynu ka warrami doonaa taariikh faneedkii Allah u naxariistay fanaankii weyne Axmed Yaasiin Digfeer. Marka hore waxaan naga codsiyaa inaad like garayso page-keena, sidoo kale subscribe aad tiraahdo YouTube channel-keena. dariiqan ka laabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo darisaanu noqone. Yaasiin Axmed Digfeer wuxuu ku dhashay gobolka Qoraxay ee dhulka Soomaali Galbeed dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka xilli qiyaastii ku beegan sanadihii 1947 ilaa 1950. lama oga sanadka rasmiga ah oo fanaanku dhashay. Bilowgii hore ee noloshiisa wuxuu u soo wareegay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, halkaas oo uu ku noolaa ilaa taabagalkiisii. Waxa soo koriyay adeerkii Goox Qarboosh oo ka tirsanaa ciidamada, sidoo kalena dhalay fanaankii Maxamuud Goox Qarboosh. bilowgii sanadkii 1970 Soomaaliya waxa ka bilowday kacdoon faneed. Waxa aasaasantay kooxdii hobolada ee Waaberi. Kadib sanadkii 1973 waxa la aasaasay kooxaha Onkod iyo Horseed oo kala hoos tagi jiray militariga iyo asluubta. Axmed Yaasiin Digfeer waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii kooxdii Horseed. sanadkii 1973 wuxuu ahaa markii koobaad Yaasiin Axmed Digfeer uu ka soo muuqdo riwaayadii Ugub Jacayl iyo Afkalaqaad. Maxamed Warsame Jubba oo ka tirsanaa raadiyo Muqdisho ayaa Axmed Yaasiin ku naanaysay magaca Digfeer oo ku jiray heestii Digfeer Aawada Galay. Maxamed Warsame oo gobol Jubba wuxuu ku dhintay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. Waa ninka Axmed Yaasiin ku naanaysay heesta Digfeer. Digfeer oo muddo kooban ku noqday nin fanka Soomaaliyeed dhexdiisa caan ka ah, sidoo kalena noqday macallimiinta kooxdiisa Horseed. Waxyaabaha la aaminsan yahay in suugaantiisa ay soo saartay waxaa ka mid ahaa ilaa 4 heesood oo uu dhibay Abwaan Nuur Jees oo madax ka ahaa maxkamadda gobolka Hiiraan. Heesahaasi oo abwaanku kaga cabanayay xaaskiisa. Heesahaasi waxaa ka mid ahaa heesta Sagal, Saaxiib miyaan nahay iyo kuwa kale. sagalay nafta saxan weyde sahweysa awga ada suuradaada loo saaray hibade gurmadsiino dhan. sagalay nafta saxan weyde sahweysa awga ada suuradaada loo saaray hibade gurmadsiino dhan. saaxiibadayyo dariska bal su'aalo sabkiyaan la socon jiray weydi sidaan ahay marla. qisadan Abwaan Nuur oo bilaamatay 1973 in muddo ahna socotay ayaa Abwaan Nuur Jees waxa uu saluugay fariimaha uu dirayo iyo falcelinta ka imanaysa oo aanu midho u arkin. waxaana taasi sababtay in abwaanku uu gabadha u calmaday ku tuuriyo madaafiic jacayl oo ay dirwalinayaan qaar ka mid ah fanaaniinta kooxda Horseed ka tirsan oo Digfeerna ku jiro. muddo kadib Abwaan Nuur waxa uu soo wareegay Muqdisho, halkaasi ayay Digfeer waqti ku sii wada qaateen. inkastoo la sheego inaanay xilligaasi haweeneyda iyo Abwaan Nuur lamaana ahayn, balse weli waxa aad u xooganaa jacaylka uu qabay. qisadan jacayl ee taxanaha ahayd ee Abwaan Nuur Jees ayaa Digfeer ku noqotay astaan jacayl oo dadku u maleeyaan. hees walba uu qaadayo inay ka hadlayso jacaylka Abwaan Nuur iyo gabadha uu calmaday ka dhaxeeyay, sida uu Digfeer marar badan sheegay. xataa haddii aan anigu qisadayda ka heeso waxa loo maleynayaa tii Abwaan Nuur, ayuu yidhi Digfeer. Alfanaan Digfeer oo lagu tiriyo fanaaniinta ugu badan ee gabdhaha buufiya marka heesahooda loo eego. haddaba isaga jacayl ma ku dhacay? bal aynu isla eegno. waxa soo martay qiso jacayl oo saameyn xoogan ku yeelatay geedigiisa faneed. wuxuu kaga heesay xaaladiisa heeso badan oo ay ka mid tahay ma markaad gaajootaad garaba maalin dubataa. heestan oo ku saabsanayd dood uga gardhiganayay marwadiisa.
talagu racanun maskaxdayda geli karin badanaa guraysa waxaa gaadhka tahay ilmahayga guraya dadka kale ma gaadhin talagu racanun maskaxdayda geli karin badanaa guraysa gaadhka kahaye ilmahayga guraya dadka kale ma gaadhin xagooni kaa dhigay odaymadigan dhalin xagooni kaa dhigay xagooni kaa dhigay odaymadigan dhalin xagooni kaa dhigay naga bankii uu dhalay gacantiisa kuma dile naga bankii uu dhalay gacantiisa kuma dile ma markaad gaajoota garaba maalintubada digfeer heesaha buufiska ee gabdhaha uu ku eriyay qisooyinkoodu badi isaga kuma sahabsanayn shakhsiyadiisuna ma ahayn sida kuu sawiranta marka aad dhegaysato heesaha ay ka mid yihiin burji iyo nasiib laay nasiib laay barwaaqada ka carara abartana u baydhay khayrka below ka jaceeley below iyo baaska jaceeley wuxuu dumar ka baqi jiray iyadu u badheedhay bilcabo khasaara isla ayaamihii fanka ee digfeer habeen ku jiray sanadkii 1981 iyadoo muqdisho la joogo waxaa goob ay ku sugnaayeen qaar kamid ah hobolladii horseed ugu yimi nin dhalinyaro oo ka soo safray galgaduud bartamaha Soomaaliya ninkan wuxuu ka cabanayay gabadh ku ballan furtay oo ay jacayl wadaag ahaayeen isla markaana barbaarta da'dooda ay isku ogaayeen ninkii markii uu sheekeeyay wuxuu xusay in gabadhaasi ay nin kale ka raacayso oo markaas isaga ka dhaqaale roon abwaan aadan cabdi aadan garaash oo dadka badankooda ku garan og yihiin gabaygii toosi luquntaada ayaa u alifay heesta burji iyo nasiib laay oo eryadeeda ka mid yihiin waxaan baaq u dirayaa tacsi uga bundhigayaa jacaylkeeni berigii barbaartii wax ka ogeyd ee gelinsoor bankiisa iyo baadiyihiisa laga helo beelaguba inaad tahay waxaan baaq u dirayaa tacsi ugu bundubayaa jacaylkeeni berigii barbaartii wax ka ogeyd gelinsoor bankiisiyo baadiyihiisa laga helo beelguba inaad tahay iyo been raad maaleen dhexmarin bariidadu lewaan isbarane dhexmarin bariidadu lewaan isbarane 1982 digfeer iyo kooxdiisii horseed oo hargeysa geeyay riwaayadii waqti iyo waali jacayl oo alifay abwaan bashiir salaad wuxuu ku warhelay inay hargeysa timi xaaskiisa oo sidoo kale uu ka dhaxeeyay jacayl xoogani balse khilaaf ku kala maqnaa digfeer wuxuu codsaday in la fasaxo isagoo sheeganaya inuu xanuunsanayo balse waxa ka diiday taliyihii kooxda inkastoo ay fasaxeen maan hobolladii kala duwanaa ee ku jiray horseed safarkana ka mid ahaa digfeer oo cabiraya fasaxa loo diiday isagoo oo la hadlaya taliyihiisa wuxuu ku heesay anna waa laysitaa adna waa ku subax wanaagsan waqtigu samooyo si uu noqon digfeer heeso badan ayuu noloshiisa ku cabiray waxaana ka mid ahayd heesta haddii geel la kala dhaco uu kaga hadlayay mar uu gabadh wacalmaday weydiistay qoyskooda balse hayb ahaan loogu diiday wuxuu si farshaxanimo la uga doodayaa in haddii dadka dhib kasta dhex maro in laga wada xaajoodo oo arrinta gar lagu dhameeyo balse isaga tiisu gaf looga galay hadiiba loo diiday inuu ka gar dhigto gabadha wacaashaqay hadigeel kala dhaco gurmadkii birmadayo wuguuyadii wade gumaclay isku weeraro qarni geerigooda kortaasokeeyo miyan gurti oday geedinta
intay fadhiistaan garta lagu dhammayn jirin gacan qaadaf garasha leh gacan lagu bogsiin jirin goortaas okaynuhu iyan gurtii oday geed intay fadhiistaan garta lagu dhammayn jirin gacan qaadaf garasha leh gacan lagu bogsiin jirin waxataa gadeeda yartu waa gayaankaye haddaan gabadha caashaqay waxa geedkaygu xidhe gursamaysid layidhi caliyo xigaalaba wagodoobu wadataan aniguna ku garansini xilliyadaasi fanka Soomaaliyeed muddo dhowr sano ahba gudahood waxaa la sameyn jiray qiimeyn ku saabsan tayeyntiisa waxaana qiimeyntaasi sameyn jiray isla fanaaniinta dhexdooda iyagoo soo xulaya fanaanka sanadkii 1983 waxaa la abaabulay qiimeyn ku saabsan fanaanka ugu wacan heesaha calaacalka luuq ahaan iyo laxan ahaanba labadiiba waxaa lagu maamusay Yaasiin Axmed Digfeer waxyaabaha gaarka u ahaa Yaasiin Digfeer waxaa kamid ahaa inuu kaalinta koobaad kaga jiray bilada tumista heesaha fudud waxaana la sheegay inaanu jirin qof sidiisa u tumay inta la ogyahay fanka Soomaaliyeed burburkii Soomaaliya kadib Digfeer waxa uu inta badan ku noolaa magaalooyinka Jigjiga iyo Jabuuti Allah u naxariistay Digfeer waxa uu magaalada Hargeysa ku geeriyooday sanadkii 2002 daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa taariikh nololeedkii sidoo kale waayihii faneed ee Allah u naxariistay fanaankii weynaa Axmed Yaasiin Digfeer